nin ku nool wadanka Shiinaha ayaa been abuur ku sameeyay geeridiisa si uu lacag uga helo shirkadda caymiska Shiinaha. Hase yeeshee arrintaasi waxa uu ka dhaxlay musiibo kadib markii warka geeridiisa ay maqashay xaaskiisa isla markaana ay isdishay 2 carruur oo ay isku dhaleen ay nafta ka qaaday. Ninkan ayaa markii dambe waxa uu isku dhibay booliiska deegaanka. 34 sano jirkan ayaa loo maleynayay inuu dhintay kadib markii gaarigiisa laga helay webi dhexdiisa walow asaga meydkiisa aan goobta laga helin sida ay sheegeen booliisku. Xaaskiisa ayuu ku ogeysiin qorshahan uu ku damacsanaa inuu ka helo lacagta caymiska ah. Haweeneydan iyo carruurta ayaa isku tuuray barkad ay biyo ka buuxaan kadib markii ay online-ka ku cadaysay qoraal kooban ay soo dhigtay inay isdilayaan. ninkan oo ay booliisku magaciisa ku sheegeen ayaa jimcihii isku soo dhiibay booliiska deegaanka Shinwa ee gobolka Hunan. booliiska ayaa ninkaani u xiray inuu doonayay inuu lacag si aan sax ahayn uga qaato shirkadda caymiska Shiinaha iyo inuu si ogaala u burburiyay hanti. booliiska Shinwa waxa ay sidoo kale ku sheegeen bayaan ay soo dhigeen barta WeChat oo ah barta ay ku wada xiriiraan bulshadeynta Shiinaha. bilowgii bishii September ayaa Mr. isagoon xaaskiisa ku wargelin waxa uu iibsaday qorshe caymis oo ku kacay adduun gaaraya 1 milyan oo lacagta hooyaanka Shiinaha ah una dhiganta 145,000 oo dollarka Mareykanka ah sida ay ku sheegeen bayaanka booliiska deegaanka Shinwa.